madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore soo bandhigay istiraatiijiyad cusub oo dawladdiisu ay ku waajihi doonto ururka Al-Shabaab. Istiraatiijiyadan oo ka kooban 3 qaybood oo kala ah tallaabo militari, mid fikir iyo mid dhaqaale. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in siyaasadaha ilaa haatan lagu soo waajahayo ururka Al-Shabaab aysan ahayn kuwo ku filan. ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa militari ama ciidamada amniga noocay doonaan ha ahaadeen laakiin wax kale ku daraynaa oo aan hore u jirin. waxaan ku daraynaa dagaalka fikirka, diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badan Soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayagu wakiilkiin kuwa diinta saacada sheegayeen inaan dadku u sheegin beenaalayaal waaye diin ma aha waxay wadaan. sidaas daraaddeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshanaa diinta ay naga xadeen waa farantiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno. faranti saddexaadaa jiro iyo mid afraad. kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waay. dhinaca kalena hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Deeriye oo loo yaqaan Abu Cubayda ayaa isaguna ka hadlay mowqifka ururkiisa ee dawladda cusub. waxa uu sheegay inay la dagaalami doonaan iyo inaysan aqbali doonin dawlad iyo maamul aanay aasaas u ahayn islaamka iyo shareecada, sidoo hadalka u dhigay. dawladihii soo maray Soomaaliya ayaa iyagu carabka ku adkeynayay in dastuurka Soomaaliya uu aasaaskiisu yahay diinta islaamka iyo in maxkamadaha waddanku ay xukumadooda aasaas uga dhigaan diinta islaamka. Abu Cubayda wuxuu si weyn u dhaliilay hogaamiyaasha Soomaaliya xilliyada kala duwan soo maamulayay oo uu ku eedeeyey inay ku guuldarraysteen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka waddanka. mid kasta haddii dib loo fiiriyo taariikhdiisa iyo muddaxileedkiisa maxaa horumar ah uu u gaarsiiyey dalka, muxuuse u qabtay ummadda Soomaaliyeed ma la isweydiiyey? ilaa iyo maantana waxay ka qabteen ma jirto. dhibaatooyinka faraha badan ee dalku la daalaadhacayay muddo ka badan 30 sano, ha noqoto kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha, ama tayaynta caafimaadka iyo waxbarashada, ama fidinta adeegyada aasaasiga ah ee ummaddu u baahan tahay, ama ka hortagga abaarta gaagmareebtada ah ee muddo dheer soo jiitamaysay taasoo dadkii iyo dunyadiiba saamaysay. haddaba ma shaqayn kartaa istiraatiijiyada cusub ee uu shaaciyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud? Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta waxbarashada. ururkana waxa uu ka soo goostay bishii 8aad ee sanadkii 2016. waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo istiraatiijiyada uu ku dhawaaqay madaxweynuhu. anigu runtii aad baan u bogaadinaya arrintaas, sababtoo ah waxaa ii muuqato in madaxweynuhu fahmay mashaakilka iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira iyo sida loo xalinayo. dal aan nabad ahayn horumar lagama samayn karo. haddii qoombaday subaxdii meel la dhigo galabkii la duminayo, subaxda kale ku celinteedii waxba xikmad ah oo ay faa'iideynayso ma jirto. marka isagoo hadda bilo keliya jooga ama 2 bilood keliya jooga uu bannaan in mushkiladii meeshii ugu weyneed ay ka jirtay uu abaaro. runtii waxaan isleeyahay waa qayb ka mid ah in aad moodo inuu ilaahay waafajiyey dhibka meesha uu ka jira iyo sidii loo xalin lahaa. waddanka hadduu nabad yahay wax kasta ka suuroobi kara oo horumar ah. Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu ka digay in markii la gudagalo fulinta istiraatiijiyada madaxweynuhu soo bandhigay ay Al-Shabaab bilaabi doonaan weerarada gudaha magaalada Muqdisho si ay dawladda ugu mashquuliyaan magaalada ayna u dhicseeyaan qorshayaasha. isagoo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi awal waxay samayn jireen markii magaalada Muqdisho oo holaceedi iyo dadkeeda u socdo, dadkii maamulka iyo magaalada joogay ama maamulayaba mar walba waxay xoog isugu geynayaan sidii dadkan kacaya ay u damin lahayd. marka sidaas ay tahayna hoggaanka dagaalka waxaa gacanta ku haya qofka weerarka leh, xilliguu doono iyo siduu doono iyo goobtu doonaba saddexdaas isaga go'aanka gaarideeda iskale. marka waxaa laga yaabaa inay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysnaa wixii tirada badnaa inay soo celiyaan ay dib u bilaabaan si marka ay loogu mashquuliyo dawladdu magaalada iyo gudaheeda loogu mashquuliyo, aynan weerarka khaarijiga ee dibadda usoo baxayso looga mashquuliyo. oo wax dhici kara oo la saadaalin karo maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda imaan kara waaye. ayadana fikir in laga digtoonaado, haddana aan xoog badan aan la gelinin, sababtoo ah markii adiga weerarka lagugu yahay difaacaad ku ururaysa. kullama difaacaad ku ururtana dee madaxaad gacanta saaranaysa ood gambanaysaa. kaad ka gambanaysana mar haddii indhahaaga hoos u foorara madaxaaga meesha doonuka iyo wax kaaga dhufanaya, sababtee lagu ku dul taagan yahay oo baad ururta god baad gashay. maradaad god gashayna jirkaagii oo dhan baad xaraysay. marka waa tan ay u leeyihiin khayru difaaci alhujuum.
difaaca waxa ugu khayroon ama ugu fiican weerarka. qofka weerarka isaga la iska celinaya goorma isaga la weeraraya marka gadaashiisiba u badbaadayso gudihiisiba u badbaadayso isaga laakiin iska difaacidiisii waqti iyo dhaqaale iyo wax walba la isugu geynaya. marka taana waa la filan karaa wax imaan kara waa. Al-Shabaab waxay dagaal soo wadeen muddo ka badan 15 sano inkastoo aysan ku guuleysan inay afgambiyaan dowladda Soomaaliya haddana waxaa dagaalada ku dhintay kumanaan kun oo qof. dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika ee taageera ayaan sidoo kale iyaguna ka guuleysan ururka Al-Shabaab. haddaba xaggee ayay ka imanayaan awoodda iyo dadaalka cusub ee istiraatiijiyada madaxweynaha lagu hirgelinayo? Ibrahim Nadara mar kale. awoodda iyo dhaqaalaha ama energy-ga awalba ummaddu way ku jiray. Soomaaliduna dib walba ayada isaga filan. kaliya waxay u baahan tahay hoggaan ruuxiya kaga horeeya dhibka tilmaama istiraatiijiyo leh iyo habkii loo fulin lahaa dadku marka ayaga sameynaya. marka Soomaaliduna dhibkeedii inay xalisato way isaga filan tahay. qof kalena uma baahna. military ahaanna waayihii dambe waa dad aad iyo aad u dhisan ciidanka Soomaalidu. haddii marka ay helaan hoggaan kiina fahansan hormuudna u ah istiraatiijiyadina u diyaarsan tahay waan aaminsanahay in awoodi weli ay jirto. tan dhaqaalaha ayadu waa wax ka dhashay awoodda shabaabku ay leeyihiin. dadka laga qaadayo dhaqaalahana inay canshuurtii shabaabkana bixiyaan tii dowladdana bixiyaan zakadii ilaahay ku waajibiyeyna ay bixiyaan ama shabaab ha siiyaano ama ayaga iskoodii qaraabadoodii dadka masaakiinta ah jeebkooda ha ka siiyaano ma xamili karaan. laakiin waxaa ku kalifay inay naftooda ku badbaadsadaan. bani aadamkuna markii maalkiisa iyo naftiisu ay kulmaan maalku hura si naftu ay u badbaado. sababtoo ah nafta asal ah maalkuna waa farac. haddii naftu ay jirto maalku waa la helaa. laakiin naf hadday go'do maalku ma imaanayo. marka haddii dadku ay helaan kalsooni ay lacagtooda ku diiri karaan uma baahna awood iyo xoog in la gelsho keliya. waxaa soo haray arrinta ku saabsan tan ideology-ga iyo midda military-ga. tan ideology-ga waa sax. culimadu wax badan bay ka hadli jireen. wax badan way sheegi jireen. waan aaminsanahay haddaba in wax sheegidu aysan weli heerkii la rabay gaarin. oo ay u baahan tahay meel walba in looga dhiirado oo masaajida looga dhigo. dadku wax sheegi jiray waa ama dad ka baxsan Soomaaliya meel ka fog jira ama dad dawladdu ku hoos nool intaas ay ahaayeen. laakiin haddii dadku ay helaan kalsooni iyo dawlad iyo hoggaan kaga horeeya dhibaatada haddii marka labadaasi keliya laga abaaro midda saddexaad ee dhaqaaluhu ayada iskeeda u xirmaysa. sababtoo ah awal inay shabaabku lacag qaadan karaanba dadku mayna aaminsanayn oo dad nin walba dhibkuma ka cararay. dagaalka u dhexeeya dowladda Soomaaliya ee taageerada ka helaysa ciidamada midowga Afrika iyo ururka Al-Shabaab waxa uu muuqday sanadihii ugu dambeeyay mid la isku mari waayay. haddaba haddii ay sii socoto xaaladan ismariwaaga ah yay faa'iido ugu jirtaa? Ibrahim Nadara mar kale ha sharaxo qodobkaasi. waqtigoo dheeraada waxay mar walba dhib ku tahay qolada marka dowladda ah. laakiin jabhadu ayada dhib waqtigoo dheeraada dhib kuma aha. marka hadda waan aaminsanahay maadaama dadkii shacabkaana dhibkii uu gaaray oo wax si dhah dadku waxay maanta ka taagan tahay ama dowladdan laga adkaado hal qolana xukunto ama ay dowladdu ka adkaato shabaabka oo dowladdiina wada xukunto. yani dhibku markuu kaa fato dhinacana dab lagaaga hayo waxaad aaminaysaa ilaa heer aad tiraahdo war labada dhinac kaa hay mid inaad oo dhinac kale si uu kuugu badbaado. marka Soomaalida heerkaasay maanta ka maraysaa. dagaalkan waxaa loo daayay dad ciidamo shisheeye oo wadanka jooga. ciidamadii shisheeyana hadda istiraatiijiyadii hore ku socdeen oo dhan way tan hadda fashilka taagan weeye. sababtoo magaalooyinkii la qabtay isuma gurman karaan oo dhexdoodiiba maamulo kale ay ka jiraan. marka qof gadaashiisii wax ka socdaan horey inuu usii socdo way ku adag tahay. hadda marka jaanis badan baa jira dowladdan oo subax carcarteeda wadata iyo iyadoo teerankeedii hore waayo aragnimo iyo khibrad badan ka faa'iidaysatay. marka hadda wax waa la dhaqaajin karaan aaminsanahay. ciidanka Soomaalidana dowladduna hadda dhiig cusub baa ku jiro. 5 sano hadda u dambeysay oo dhan diyaargarowgoodii ma xumayn oo tababar fiican bay qaadanayeen. Ibrahim Nadara waxa uu aaminsan yahay in dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay oo kaliya inay laba istiraatiijiyo xoog saarto kuwaasi oo kala ah tallaabada military iyo tan xagga fikirka ah. Maxamed Fadiga oo ururka Al-Shabaab dhexdeeda looga yaqaan Zubayr al-Muhaajir waxa uu isaguna hore uga soo goostay ururka Al-Shabaab waxana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. asalkiisa waxa uu ka soo jeedaa dalka Ivory Coast.
waxa uu aaminsan yahay in dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab uu socon waayey ee loo baahan yahay in loo jeesto dagaalka dhinaca fikirka ah. waxa uu qabaa in istiraatiijiyada uu madaxweynuhu soo jeediyey la hormariyo tan fikirka. waa inay saxsan tahay in kale insha allah waa rajeynaa inay sax tahay, laakiin aniga fikri ahaan fikrigeygii waa sax in saddexdaas in la adeegsado waa sax, laakiin waa in la kala hormariyo maadaama 15 sano oo dagaal lagu jiray oo aan faa'iido badan keenin. hadda waxaa la rabaa marka koowaad waxay ahayd in dhinaca fikra in xoog la saaro, ma fahantay? marka hadda waxa haddii suurtagal tahay oo istiraatiijiyada oo la dagaalanka dhinaca fikriga la hormariyo intaan dagaalka la gelin, saas haddii suurtagal tahay waa aaminsanahay in waa lagu guulaysan karaa. laakiin haddii la hormariyo ciidanka iyo dagaalka militariga, waxaa ka cabsanaya inay fashil sidii kuwii hore inay fashil ku dhamaanayso ka cabsana, ma fahantay? haddii la isku dhex wada ka waran, haddii la isgarab wada ka waran, way adkaanaysaa. waxaa la rabaa hal shay inaa xoog saartid. hadduu soco waayo midda kale inaa la timaadid, laakiin saddexda waa dhinaca dhaqaalaha horta way adkaanaya in laga guulaysto al-shabaab. maxaa yeelay dhinaca oo baadiyaha ay ka maamulaan, ma fahantay? dadka way siinayaan xoolaha. Ibraahim Nadaar oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay inaysan wax weyn iska dhimin awooddii ururka al-shabaab, sanadihii ugu dambeeyeyna aysan dhicin dagaallo lagu wiiqayo awooddaasi. kolley hadda wax awoodooda iyaga dhexdooda isdhimay ma ogi. dagaal inta lagu qaaday oo maanta lagu baabi'iyey oo awoodooda hoos loogu dhimay ma jirto. sanadihii hadda u dambeeyey oo dhankoodana weerarada sidii hore kama ahayn. dhankan dawladuna hata wax oo iska munaawaraad ah, ciidamada rondooyinka sameeya, tuulo la tago laga soo laabto, howlgallo qorshaysan oo unugyo gaara ay fuliyaan, wax sidaas oo kale ma ogi. awoodoodii ay lahaan jireen wax weli hadda nusqaamiyey ma jiraan. waxay intaada usii dheer in dhaqaalahooda uu kordhay oo hadda meel walba lacag ay ka qaataan, haday canshuurta weliba oo meel walba ay ka urursanayaan, iyo goob walbo ganacsi ay ka qaadayaan, oo dhulalkay dawladda xukumayso madaxweynuhu natiirkiisaba uu sheegay, qof walbana maanta uu ogyahay. Maxamed Fadiga waxa uu isagu leeyahay awoodda rasmiga ah ee al-shabaab waa inay dhaqaale ka aruuriyaan meelo aysan ka talinin, iyo dagaalka dhinaca warbaahinta ah oo uu aaminsan yahay inay aasaas u tahay in fikirka al-shabaab ay weli dad aaminsan yihiin. awoodda ururka al-shabaab sidii hore maaha, qof walba u ogyahay arrintaas. ogaa awoodooda uu waqday sidii hore maaha. hadda magaalooyinka ugu waaweyn oo Soomaaliya waa laga saaray, laakiin weli baadiyaha ay ku hoogan yihiin. laakiin weli waa dhibka weerarada ay sii wadayaan. laakiin dhul oo ballaaran sidii mar hore oo ay qabsadeen hadda ma jirto. laakiin weli awood ay leeyihiin inay weerarada inay geystaan meel ay rabaan. awood kale ay leeyihiin inay dhaqaale inay ka aruuriyaan inkastoo aysan magaalada joogin. taas waa awood. awooda kale ay leeyihiin waa dhinaca iclaamka, dadka saameyn ku yeelanaya dhinaca fikirka iyo caqiidadaba. waxaa laysku qaldaa had iyo jeer, waxaa lagu wareeraa tirada ciidankooda waa imisa, al-shabaab waa imisa, bal arrintaa naga jaahil tir. wallahi hadda adiga ma ogaan karo, laakiin waa haddii la qiyaas ahaan aniga waxaan dhihi lahaa inta u dhexeysa 10,000 iyo 15,000 aan dhihi lahaa. laakiin sida dhabta oo tirada dhabta lama heli karo, way adag tahay. laakiin qiyaas ahaan 10,000 meelahaas oo malaynahay. ma ku jirtaa meesha arrin ah in la dhayalsanayo? saas way ku jirtaa, waa sax. waa iska diicayaad, laakiin xaqiiqada markii la hadlo waxaa la rabaa in runta in la abaaro, in la isku sheego runta. haddii markasta oo cadowga awoodiisa hoos u dhigto, adiga laftirkaaga inaad la dagaalantid awoodii aa u baahan tahay hoos aa u dhigaysaa, ma fahantay? laakiin cadowgaaga haddaa si fiican u qiimaysid inta loo baahan yahay oo la dagaalankiisa aa la imaaneen,
markaas hadii la dhaho shabaab oo iska daciif yihiin iyo waas laakiin weli weerarada meesha ay rabaan ay geysanayaan taas waa nasiib daro runtii. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadiisii siyaasadeed ee uu jeediyay toddobaadkii hore waxa uu ku sheegay inaan haatan Soomaaliya joogin marxalad ay kula xaajooto ururka Al-Shabaab isagoo intaas ku daray in lala hadli doono xilliga saxda ah ugu dambeynna nabad lagu dhamayn doono. Ibrahim Nadaara waxa uu ku doodayaa in madaxweynaha Soomaaliya uu fahamsan yahay xalka. Waxa madaxweynuhu arrintu uu fahamsan yahay sababta hadda qofkaana dhaqaale badan oo dhaqaale ku filan heli kara bolalku haysan jireen wali sidii u haysta systemkiisii maamulkiisana wali sidii soo dhisan qabkiisii iyo ideology uu ku dagaalamayeen wali sidii ay u tahay baahi hadda uu dawladda ula hadlo ma jirtaba haddii lacala ula hadlana shuruudo adag oo lagana dhex karin wala hadalkuna wuxuu yimaada markay baahidiisu ay timaado labada daraf midkood ama labadaba isu baahan yihiin ama mid ay duruufi hayso tabaryari ha noqoto ama dhaqaale xumo ha noqoto wadaba ay noqotoba yuu imaan karaa marka hadda maadaama laba murantay ma saalayahay waa in horta meel loo kala dhaca kadib wada hadalka imaan karaa marka waan aaminsanahay inuu fahamsan yahay cudurka meeshu ka jiro iyo mushkilada xaddiga ay la eg tahay laakiin Maxamed Fadiga ayaa qaba in Al-Shabaab laftoodu aysan xilligan wada hadallo diyaar u ahayn isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri horto ciidan ahaan military ahaan in laga guuleysto Al-Shabaab hadda uma maleynayo kaas waa aragtideedii maxaa yeelay 15 sano wax kasta waa la tijaabiyey afraatay mushkiladii waa qaabka ee labada dhinac ay ku dagaalamayaan dhinaca dawladda waa la yaqaan qaabka ay ula dagaalamayaan waa baabuur iyo tankiyo iyo weerar meel adeeraba in weerar ku kaadaan Al-Shabaab way ogyihiin asla inay imaanayaan oo isdiyaarinayaan ama adeerabaan way u banaynayaan Al-Shabaab inay qabsadaan sabti maaha waa muhiim ulamaha dhulka way ka bixi karaan magaalada way ka bixi karaan laakiin hadhow jidadka way goynayaan magaalada aad goodoon gelinayaan kaas qasbaya in ciidanka meesha ka soo galay inaysan joogi karin inay ka baxaan sida ay ku dhacday oo Elbuur marar badan ciidanka oo ama Ethiopianka ama dawladda way soo galeen Sooma dadka wadan way ka baxeen magaalada goodoon la geliyay kadib ugu dambeyntii way ka baxeen ma fahamtay marka military ahaan in looga adkaado uma maleynayo aniga Al-Shabaab laakiin halka keliya oo looga adkaan karo Al-Shabaab waa afkaartooda iyo fikrigooda in laga dagaalamo in laga jawaabo in dadka Soomaalida ama dadka ku hoos nool Al-Shabaab ama dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab in la wacyigeliyo in loo cadeeyo in afkaarta Shabaab waa afkaar khaldan oo diinta ka hor imaanayaan waa gartay ka waran wada hadal diyaar ma u yihiin ma lala hadli karaa wada hadal haddii lagu dayo ka waran aniga hadda wallahi Al-Shabaab inay wada hadal inay ogol yihiin ma u maleynayo ilaa hal sharti mooye wada hadalka Shabaab ay ogol yihiin waa in dalka ama xukunka dalka in la gacan geliyo wada hadal ay aaminsan yihiin waa intaas waa laakiin aan wada hadalno awoodda aan qaybsano ama wax kale Shabaab ma aaminsana waxay rabaan inay qabsadaan wadanka gebi ahaanba ama inay dagaalka sii wadaan ururka Al-Shabaab ayaa 10 milyan oo lacagaha ka aruuriya gudaha Soomaaliya sanad walba waxay sidoo kale 100,000 oo neef ka aruuriyaan dadka xoolo dhaqatada ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in lacagaha laga qaado Soomaaliya ay ururada xagjirka ah u diraan dibadda gaar ahaan kooxaha ka dagaalamaya Nigeria iyo Mozambique iyo xataa ururka Al-Qaacida waxaana uu sheegay in dawladdiisu ay ka shaqayn doonto sidii loo xiri lahaa tuubooyinkaasi dhaqaale sida uu hadalka u dhigay hadday daasho waayaan ilaa hadda waxay soo daashada Soomaaliya ka aruuriyaan dibadda u diraan ka Mozambique ka dagaalamaya ka Nigeria ka dagaalamaya tawrucad Soomaalida oo qaarkooda loo geeyaa gaar Al-Qaacida buuraha dul ku jirta lacag Soomaaliya laga qaadaa gaarto kama faqti hore waa ka imaan jirta lacag hadda teenaal aan loo qaadaa loo geeyaa tuubooyinkaas waa soo xirina haddaba ururka Al-Shabaab ayaa ka jawaabay hadalka madaxweynaha oo ay ku tilmaameen mid lagu qoslo war-saxaafadeed ay soo saareen Al-Shabaab waxay ku sheegeen in ujeedka hadalkaasi yahay in indhaha laga jeediyo guuldarrada ka taagan in wax loo qabto dadka ay abaaruhu saameeyeen
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda cusub ee dhawaan la soo dhisi doono ayaa laga sugayaa inay soo bandhigaan qorshaha lagu hirgelin lahaa istiraatiijiyada uu soo bandhigay madaxweynuhu. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.